madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa qorsheynaya in xilka laga qaado ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble farmaajo ayaa damiciisa si aan gambasho lahayn ugu cadeeyay qoraalkii uu soo saaray abaaralabadii aroornimo ee maanta ee uu shirka isugu yeeray madax goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir madaxweynuhu wuxuu ku baaqayaa in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo lagu saxayo jihaynta doorashooyinka kaas oo ay ka soo qayb galayaan golayaasha dawladda ee heer federaal dawlad goboleedyada iyo gobolka banaadir si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhammaystiran oo si hufan dalka uga dhacda ayuu farmaajo ku yiri qoraalkiisa hoggaanka uu farmaajo doonayo in la isku waafaqo ayaa sida aan xogta ku helnay loola jeedaa ra'iisul wasaare cusub waxaana durbahan qorshe bilaabay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan mursal oo shalay khudbad ka jeediyay xamar ayaa tusmeeyay damaca isaga iyo farmaajo kadib markii uu sheegay in heshiiskii 27 Sebtembar uu ku egyahay dhamaadka bishan December taasi oo meel uu ka keenay aan la garanaynin balse loo fahmay arbushaad cusub sida aan xogta ku helnay farmaajo ayaa xilka qaadista ra'iisul wasaare Rooble taageero uga raadinaya qaar kamid ah mucaaradka isaga oo ku qancinaya inuu ra'iisul wasaare ayaga ka keeni doono si kastaba inta badan mucaaradka ayaa diidan isku dayga farmaajo hase yeeshee waxa laga cabsi qabaa in qaarkood uu damac qaado oo ay u dhuntaan dhinaca farmaajo tallaabooyinka cusub ee farmaajo ayaa dalka geliyay qalalaase siyaasadeed oo hor leh waxayna cadeyn u noqdeen in Soomaaliya aysan marnaba ka dhici doonin doorasho intuu filla Soomaaliya ku sugan yahay farmaajo dhinaca kale faahfaahino dheeraad ayaa waxa laga helayaa qarax khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay qaybo kamid ah degmada Dayniile ee gobolka Banaadir kaasoo ay waxyeello xoogan ka soo gaartay saraakiil iyo asgar ciidan qaraxa oo ahaa miino ayaa lagu soo waramayaa in duleedka isbitaalka Dayniile lagula eegtay gaari uu la socday taliyaha amniga degmadaasi Cabdisamad Ugaas Xaashi Ugaas Faracade kaasoo la soo wariyay inuu ku dhintay weerarkaasi loo adeegsaday qaraxa sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in isla qaraxaasi ay ku dhinteen 3 askari oo gaariga la saarnay taliyaha kuwaasoo magacyadooda lagu kala sheegay Cabdi Ismaaciil Wehliye Fajakaal Cabdi Casiis Indamurux Abdulle Ariirow iyo mid kale oo magaciisa lagu soo koobay Miirow wararka ayaa sheegaya in taliyaha iyo askarta la socotay ee geeriyootay in ay ku sii jeedeen iyaga oo gurmad ah halka loo yaqaan Saqiiro oo xilligaasi ay ka socotay israsaaseyn u dhaxaysa ciidamada ammaanka iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa gaaray goobta waxayna ka soo qaadeen meydadka taliyaha iyo askarta la socotay kuwaas oo isla maanta lagu aasay magaalada Muqdisho ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan qaraxaasi lagu dilay taliyaha amniga Dayniile iyo qaar kamid ah ilaaladiisa Dayniile waxa hore uga dhacay dilal iyo weeraro qorsheysan oo qaarkood lagu beegsaday mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmadaasi welina ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan balse dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa qaatay mas'uuliyadda weerarada noocan ah oo ay waxyeelada ka soo gaarto xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya